Antonio Reyes oo qayb ka ahaa لاعبينtii kooxda Arsenal ee loo taagwaayay fasal ciyaareedkii 2003-2004 isla mar ahaantaana hantay horyaalkii Ingiriiska ee waqtigaas ayagoo aan laga adkaan isaga iyo in adeerkiis ayaa ku geeriyooday shil baabuur. Haddaba warbixintan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa in Reyes goortii uu galay shirku uu ku sii jeeday gurigiisa, gaariga uu watay nooca uu ahaa, goortii uu la aqal galay xaaskiisa iyo inta caruur ee uu ifka kaga tagay Antonio Reyes. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe dheh oo gambaleelka furo si aad u hesho xogahan halkan soo gelino. waad ku mahadsan tahay soo booqashada bartayda. xidigii hore ee xulka Spain iyo kooxda Arsenal Jose Antonio Reyes oo qayb ka ahaa لاعبينtii kooxda Gunners ee loo taagwaayay ee ayagoo 49 kulan aan laga adkaanin ku guuleystay horyaalka Ingiriiska ciyaareedkii 2003-2004 ayaa waxa uu ku geeriyooday shil baabuur. Reyes oo uu heliyo wiil in adeerkiisa ahaa oo lagu magacaabo Johnson oo 23 jir ahaa ayaa ku geeriyooday shilkaasi, halka qofka saddexaad oo lagu magacaabo John Manuel Calderana uu dhaawac culus soo gaaray isagoo 60% jirkiisa gubtay waxaana loo cararay isbitaal. waxaa xilligii uu shilkan dhacay Reyes uu ku sii jeeday gurigiisa oo ay ku sugnaayeen xaaskiisa iyo 3 caruur ah oo uu dhalay. waxaase nasiib darro ah baabuurkii ay saarnaayeen oo ku socday 120 mph oo qadka ka baxay kadibna uu holcay markii uu dabka kacay. kooxaha gurmadka degdega ah ayaa gaaray goobtii shilkaasi ka dhacay ee dariiqa ee 376. waxaa halkaa lagu arkayay baabuurkii uu waday Reyes oo ahaa Mercedes oo gebi ahaanba gubtay. magaalada uu ka soo jeeday Reyes ee Udrera oo sidoo kale ah goobtii uu ku dhashay ayaa 2 maalmood loogu baroor diiqay, halka dhammaan لاعبينtii uu la soo ciyaaray ee kooxaha kala duwan caalamkuna ay tacsi u gudbiyeen qoyska Reyes. Reyes iyo xaaskiisa Noelia Lopez ayaa aqal galay ama isguursaday bishii Juun sanadkii 2017. waxa uu ifka kaga tagay Reyes 2 gabdhood oo uu dhalay oo la kala yiraahdo Noelia oo 5 sano jir ah iyo Terena oo 2 sano jir ah. xaaskiisa Lopez iyo wiilkiisa oo 11 sano jir ah kaas oo lagu magacaabo Jose Antonio Jr.